Sheekadeenna caawa waa mid ka mid ah sheekooyinka argagaxa leh ee caanka ah. Waa sheeko aad u cajiib badan, waa sheeko qofka dareenkiisa kicinaysa oo aan si fudud maskaxda uga bixin. Dhammaadkeedana waxaa ku jira dhacdo lama filaan ah oo wax walba beddelaysa. Laakiin sheekadan waa mid aad u yaab badan, heer ay dad badan ku adkaa doonto inay rumaystaan inay dhab ahaan u dhacday. Laakiin waxaan idiin sheegayaa in markii dhacdadan dhacday, sheekadani waxay ka dhacday Hong Kong. Waqtigaas warbaahinno waaweyn oo badan ayaa sheekadani si weyn u qaadatay, waxaana laga sameeyey warbixinno fara badan. Taasina waxay muujinaysaa in sheekadan ay leedahay heer kalsooni iyo xaqiiqo u eg. Laakiin ugu dambeyn, go'aanka adigaa leh inaad rumaysato ama aad ka shakido. Ugu dambeyn, adiga ayay kugu xiran tahay inaad go'aansato waxa aad dhab ahaan ka rumaysanayso sheekadan. Laakiin ka hor inta aysan bilaaban sheekada caawa, haddii aad jeceshahay sheekooyinka yaabka leh, kuwa mugdiga xambaarsan iyo dhacdooyinka dahsoon ee lagu soo bandhigo qaab sheekooyin ah, markan waxaa timid goobtii saxda ahayd, agagaarka dabkan sheekooyinka, sababtoo ah taas oo keliya ayaan halkan ku qabanaa. Waxaanan soo gelinaa muuqaalo cusub 2, 3, mararka qaarkoodna xitaa 4 jeer toddobaadkii. haddii taas ku xiisaynayso, marka hore u soco oo gambaleelka furo, sidoo kale subscribe-na soo dheh, muuqaalkan noo like galay asxaabta kale sii gaarsii. Haye aan hadda guda galno sheekada caawa. Hal fiid oo ka mid ahaa bishii December sanadkii 1989, nin dhalinyaro ah oo kabalyeeri ahaa laguna magacaabi jiray Zayo ayaa miisas nadiifinayay maqaayadii uu ka shaqayn jiray ee ku taalay Hong Kong markii uu maqlay taleefankii maqaayadda oo soo dhacaya. Codka taleefanka ayaa si weyn u walbahaar geliyay Zayo, sababtoo ah habeenkaas maqaayaddu aad bay u mashquulsaneed, waxaana shaqaynayay oo keliya Zayo iyo 2 kale oo shaqaale ah. kabalyeerihii kale ayaa la shaqaynayay Zayo, halka maamulihii maqaayadduna uu ku jiray qaybta dambe. Sidaa darteed, Zayo isagoo miisas nadiifinayay ayuu bilaabay inuu heerar fiiriyo, geesaha ka fiiriyo si uu u arko in kabalyeeri kale uu maqlay taleefanka uu qaban doono. Laakiin markii uu arkay kabalyeerigii kale, waxay dhab ahaantii ku mashquulsaneyd inay amar ka qaadanayso miis kale, halka maamulihii maqaayadduna uu ku jiray qaybta dambe oo caadi ahaan uusan isagu qaadan jirin wicitaanada. Sidaa darteed, Zayo wuu nadiifsaday, isagoo daalan wuu joojiyey nadiifintii miiska, wuxuuna u dhaqaaqay dhankii taleefanka. Marka ayuu taleefankii qabtay, isla markii wuxuu si dhib yar u maqli karayay qofka dhinaca kale ka hadlaya. Waxay ahayd cod u eg haweeney waayeel ah oo aad u tabar daran, waxayna taleefanka ugu hadlaysay sidii qof si hoose u xambaarsan camal. Sidaa darteed, Zayo wuxuu ku qasbanaaday inuu dhegtiisa kale gacanta ku daboolo, sababtoo ah buuq maqaayadda ayaa aad u badnaa. Wuxuuna si xooggan isugu dayay inuu si fiican u maqlo waxay haweeneydu ku leedahay taleefanka. Wuxuuna qofkan ka codsanayay inay codkeeda kor u qaado, wuxuu ku dhahay codkaada kor u qaad. Laakiin ugu dambeyn wuxuu awood u yeeshay inuu fahmo waxa haweeneydu soo wacday. Waxay soo wacday sababtoo ah waxay rabtay inay dalbato cunto loo geeyo gurigeeda. Laakiin xilligaas waxay ahayd 1980kii, sidaa darteed waxay ahayd waqti ka hor inta aysan jirin adeegyo casri ah sida maanta oo kaleeto, oo online-ka wax laga dalbanayo maysan jirin waqtigaas. Laakiin Hong Kong xilligaas, haddii qof uu maqaayad soo waco si uu u dalbado cunto loo geeyo, waxay ka dhigneyd in qofka sida Zayo uu qaato dalabkaas, kadibna uu cuntada diyaarsado oo isagu si toos ah ugu geeyo qofkii soo wacay cuntada. Sidaa darteed, ma jirin adeegyo online ah ama shirkado gaar ah oo gaarsiin sameeya. Shaqaalaha maqaayadda ayay ahayd inay iyagu qaataan cuntada oo ay gacantooda ku geeyaan meesha loo baahan yahay. Arrintan waxay ahayd shaqo aad u daal badan qof sida Zayo oo kaleeto. Sidaa darteed, markii Zayo uu fahmay in sababta haweeneydu u soo wacday ay ahayd inay dalbato cunto loo geeyo, wuxuu is yidhi, Ilaahayow, ma wax ka sii daran ayaa ka jira ama jiri kara? Halkan shaqo badan ayaa iga saaran, maqaayadduna aad bay u mashquulsan tahay,
haddana waa inaan yacni dhab ahaan cuntada haweeneyda u geeyaa kadibna soo laabtaa oo shaqadeeda sii wataa. runtii nasiib xumo weyn waaye, laakiin ma ahayn in Zayo uu wax kale samayn karo. ma uusan arkin yacni haweeneyda maya ma samayn karo, ma dhihi karo. sidaa darteed intii uu awooday si taxadar leh ayuu u dhageystay, wuxuuna haweeneyda ku yidhi haweeneydii inay celiso dalabkeeda isagoo leh yacni mar kale kusoo celi dalabkaaga, aan dibkaaga qoro si uu u hubsado. sidaa darteed ugu dambeyn wuxuu ogaaday in waxa ay dalbanaysay ay ahaayeen baasto bariis la shiilay, ukun dheeraad ah lagu daray, saxan hilib lo-aad ah yacni iyo dhowr xabo oo bariis la shiilo ah. kadib markii uu dhammeeyey qorista dalabkeeda, wuxuu u sheegay haweeneydii inuu halkaas imaan doono qiyaastii nus saac gudahood. kadibna teleefoonkii ayuu dhigay. qiyaastii 15 daqiiqo kadib gambaleelka ayaa dhacay qaybta jikada. sidaa darteed Zayo wuxuu u dhaqaaqay dhankii jikada, wuxuuna arkay in cuntadii dalabka ahayd ay diyaar tahay. wuxuu qaatay boorsadii cuntada, wuxuuna qaatay rasiidkii ku qornaa ciwaanka guriga haweeneyda ee ku qornaa rasiidkeeda ayuu ku dhejiyey boorsada cuntada maadaama qofkaas loo wado. kadibna wuxuu raadiyey kabalyeerigii kale ee habeenkaas yacni la shaqaynayay, wuxuuna ka codsaday inay fadlan ilaaliso miisaskiisa inta uu maqan yahay. wuxuuna ku yidhi waan soo laabanayaa isla markiiba. kadib isagoo cuntadii gacanta ku haya ayuu ka baxay maqaayadda. wuxuu bilaabay inuu magaalada dhexdeeda u ordo si uu u gaaro guriga haweeneyda. markii uu bannaanka u soo baxay, wuxuu eegay ciwaankii ku qornaa warqadda, kadibna wuxuu bilaabay inuu u ordo jihadii gurigaas. dhowr daqiiq kadib wuxuu gaaray dhismaha dabaqyada ah ee guriga ku yaalay. wuxuu gudaha u galay dhismaha, wuxuuna kor u sii raacay jidkii guriga. wuxuu ugu dambeyn helay albaabkii guriga haweeneyda. wuxuu garaacay albaabka, kadibna waa u sugayey, laakiin qofna kama uusan jawaabin. garaaciisa qof kama jawaabin. sidaa darteed wuxuu eegay wakhtiga. wuxuu ogaa in uu u baahan yahay inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu laabto maqaayadda. wuxuu ogaa in dad ku sugayaan maqaayadda. sidaa darteed markaan ayuu albaabka xooga usii garaacay albaabka. waan gaarsiinta cuntada, qofkii cuntadeedii wada waa camal, laakiin wax weli kama jawaabin. gudaha guriga weli waxaa ka jiray aamusnaan keliya. sidaa darteed wuxuu eegay rasiidkii ku dhegnaa boorsada cuntada, kaas oo mar kale muujinaya ciwaanka haweeneydan inuu yahay gurigan. wuxuu eegay ciwaanka guriga si uu u hubiyo inuu joogo meesha saxda ah. wuxuuna is yidhi haa, hubaalkani waa gurigii saxda ah. sidaa darteed kadib dhowr daqiiqo oo kale oo aamusnaan ah, Zayo wuxuu go'aansaday inuu joojiyo isku daya inuu si xushmad badan u sugo. runtii wuxuu u baahnaa inuu ku laabto maqaayadda. sidaa darteed wuxuu bilaabay inuu si xoogan albaabka u garaaco isagoo qaylinaya, waa gaarsiinta cuntada, soo bax oo qaado cuntadaada. markan wuxuu maqlay dhaqdhaqaaq ka imaanaya gudaha guriga. sidaa darteed wuxuu joojiyey garaacista albaabka. wuxuu maqlay qufulada albaabka oo la furayo. kadibna albaabkii si tartiib ayuu u furmay. gudaha ayuu albaabka si yar u furmay, dilaac aad u yar oo keliya. gudaha gurigu mugdi ayuu ahaa, halka marinka bannaanka uu iftiin badnaa. marka laga eego dhinaca Zayo, wuxuu ka fiirinayay dhinacaas dilaaca yar, balse waxba uma uusan arkin. ugu dambeynse mugdiga ka dambeeya dilaacaas yar waxa ay si tartiib ah ugu muuqday. marka ayaa gacan si tartiib ah uga soo muuqatay dilaaca albaabka. gacantaasna waxay siday lacag. waxay lacagtii ka soo bixisay dilaaca yar ee albaabka. qofkaas ilaa wajigiisa lama arkin. Zayo ayaa isna gacanta u taagay, lacagtiina wuu qaatay. intaas dabadeedna cod ayaa ka soo yeeray gudaha guriga. wuxuu ahaa isla codkii deganaa ee tabarta darnaa ee uu horay u maqlay. wuxuu ahaa codkii isla haweeneydii soo wacday ee dalabka cuntada bixisay. si degan ayay ugu sheegtay Zayo inuu cuntada halkaas uga tago. cuntada meesha dhig, iska bax ayay ku tiri.
halkaas dhig cuntada, lacagtan qaado, dabadeedna iska tag ayay ku tiri. Zayo aad buu ula yaabay arrintaas, wuxuuna is lahaa maxaa haweeneydan sidan u dhaqmaysa, maxay albaabka si caadi ah ugu furi weyday, yacni waxyaaba badan oo isweydiiyey. maxaad albaabka si buuxda ugu furi weyday oo aad cuntadaada gudaha ula geli weyday? adiga ayaa ii yeeray inaan kuu keeno cuntada, asal ahaan qof aadan aqoon ayaa gurigaagu ku casuumtay, haddaba maxaa hadda ka dhigay qof sidan uga taxadaraya oo isqarinaya? arrintu runtii waxay u muuqatay mid aan aad u yaab badan ay u muuqatay, laakiin isla waqtigaas Zayo arrintaas si qoto dheer ah ugama sii fikirin. runtii Zayo arrintaas wax badan kama uusan daneynin, haweeneyduna waxay siisay lacagtiisa dabooleysay qiimaha dalabka. sidaa darteed waxa keliya ee u horay waxay ahayd in cuntadu halkaas uga tago oo uu maqaayadana dib isaga laabto. sidaas ayuu sameeyey, cuntadii ayuu albaabka hortiisa dhigay, wuxuu ka baxay dhismaha guryaha, wuxuu dib ugu orday maqaayadii, halkaas ayuu kasii watay shaqadiisii habeenkaas isagoo aan wax kale kasii fikirin. ugu dambeyntiina Zayo wuxuu gebi ahaanba iska iloobay haweeneydaas, habeenkii haweeneydii wixii ka dhacay waa iska iloobay. habeenkaas dambe markii maqaayadii la xiray, Zayo iyo gabadhii kale ee adeega macaamiisha waxay ku jireen nadiifinta iyo diyaarinta bixitaanka. isla markaas ayuu maamulihii ka soo baxay xafiiska dambe, isagoo wejigiisa ay ka muuqatay walaac iyo murugo weyn, sidii qof wax aad u xun maqlay. maamulihii si tartiib ah ayuu uga soo dhaqaaqay Zayo iyo shaqaalihii kale ee adeega. markii ay arkeen wejigiisa oo aad u kacsan, xanaaqsan, labadooduba si dabiici ah ayay u istaageen iyagoo is eegaya waxa dhacay, isweydiinaya waan ogahay in midkiin labadiina ka mid ahi uu lacag ka xaday maqaayadan waan huwa ayuu yiri maamulihii, lacag baa la xaday. isla markiiba Zayo wuxuu eegay shaqaalihii kale ee adeega, iyaduna waxay soo eegtay isaga. labadooduba waxay si yaab leh u yiraahdeen maxaa tiri? Zayo si buuxda ayuu u ogaa inuusan hal diinaar ka xadin maqaayadda, sidaa darteed wuxuu hubay inuusan maamuluhu isaga ka hadleen. marka laga eego wejiga shaqaalihii kale, iyaduna waxay u muuqatay qof aan waxba ka ogeyn eedda loo jeediyey. shaqaalihii kale ee adeega gebi ahaanba uma aysan muuqan qof hadda lagu qabtay xatooyo, waxay u muuqatay mid si dhab ah ula yaaban eedda loo jeediyey, qof hadda lagu haayo soo waxay lama haayo. markaas ay labadooduba mar kale u jeesteen maamulihii iyagoo yaab iyo wareer ka muuqda. waxayna yiraahdeen maxaad ka hadlaysaa? annagu waxba kama aan xadin, maxaad ula jeedaa? maxaa dhacay? maxaad ka hadlaysaa? waxyaabahaas ay weydiineen. laakiin maamulihii wuxuu ku celiyey waa huba in midkiin labadiin ka mid ahi uu sameeyey, ma garanayo qofka saxda ah, laakiin midkiin ayaa ka dambeeya. hadda ayaan idin digayaa, haddii arrintan mar kale dhacdo shaqada waa laga eri doonaa. markaas ayuu maamulihii si degan u jeestay, isagoo aan wax sharaxaad ah bixinin oo sheegin qofka xaday, wuxuuna dib ugu laabtay xafiiskiisii. markii uu xafiiska galay, Zayo iyo shaqaalihii kale waxay halkaas ku hareen iyagoo weli yaaban maxaa hadda dhacay ay isweydiinayaan. si kastaba ahaatee, Zayo wuxuu si buuxda u ogaa inuusan wax lacag ah ka qaadan maqaayadda. wuxuu is yidhi wax walba ahaatee waxaan rabaa oo keliya inaan guriga aado. maalintani aad bay u dheereed, waan daalay, waanan waxaan doonaya in arrintan halkaas ku dhamaato. haddaba sheekadan qaybta labaad waa soo wada insha Allah. haddaad xiisaynayso muuqaalkan la galay qaybta hoos kama tegin laga weynin. haddana wax cusubtaan subscribe noo saar, aad u mahadsantahay. gambaleelkana furas ee kugu soo dhacdo qaybta labaad ee sheekadan. السلام عليكم.